carshigay ku taala sadku caadilku qoray haddii aan nasiibku calmaday waa cawbo ilaahay carafiya udgoonkeedana noqo laabtana ku rogan ballamaha jacayl iyo axdiyada laysaga baxo ayaa saameyn ku yeesha nolosha aadamaha qaar. Khaalid Cabdulaahi Maxamed waa wiil Soomaaliyeed oo dhimirka beelay jacayl daraadiis. Khaalid 24 saac waa uu heesayaa waxaana lagu hayaa Xabeeb Public Mental Hospital oo ah xarun lagu daaweeyo dadka dhimirka ka xanuunsan. soo guure gaawoy goobtan imaawe gacalkaaga igale mana iiga go'aaye god intii liga gee adigoo Khaalid wuxuu ka boogadhayday dhaawacyo xooggan oo ka soo gaaray dhanka jirka kadib markii jacayl daraadii uu iskaga soo laliyay dabaq 3 biyaano ah iyo wax ka sii dheer. Inkastoo uu ka bogsaday kana haaradhayday dhaawacii jirka soo gaaray, haddana weli waxaa saameyn ku leh dhaawacii dhanka maskaxda ahaa ee axdiyadii jacayl iyo ballamadii ay ku reebeen. dareenkaas heestaa mooye ma jiro wax kale uu daris leeyahay. xanuun maahan ee macnaha gabadha ay wixii aniga macnaha gabadhii baa u boodi si u soo roora u boodi marka u boodi ka bacdina hab aan soo rabo soo baxay dhaa soo bax anoo hab aan sii rabo staan roora hab aan sii rabo aan waxaan arkay sar anoo hoos u sii socdo aan waxaan ka bilaabo madaxan ka bilaabo inta noo waa baxay sarta meeqa dabaq ay aad soo boodayso 3 dabaq way qofta aad jecesha ayaa aragtay arkaa. Khaalid waa wiil wanaagsan oo bashaash ah, laakiin waxaa dhibaato ka haysataa xusuus mahadho ku reebtay oo noloshiisa oo dhan la daristay. haddii aad tahay qof aadana ah waxaa suuragal ah adigoon xabad midi iyo wax kale ku dilin in dhaawac halakeeya naftiisa aad u geysato qofka aadanaha ah, taasi oo ka timaada ballamada jacayl iyo axdiyada laysaga baxo. ilaali qulubta aadanaha oo ha ku xadgudbin qof insaan ah sida ku dhacday Khaalid oo kale. waxay igu dhalisay anigoo ah Abdicasiis inaan idiin soo gudbiyo warbixintan kooban dareenka i galay markii aan la kulmay Khaalid Cabdulaahi oo ku jira goob lagu baxnaaniyo dadka qaba dhaawacyada dhanka dhimirka ah. gaarsii walaalaha kale iyo dadka aad isleedahay ma oofiyaan ballamada iyo axdiyada jacayl. mahadsanideen.